بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dadka meel walba joogtiin ilaahay waxaan ugu baryaa caafimaad waaro. Maanta waxaan rabaa inaan waxyar ka hadlo su'aal la soo weydiiyay oo dhahayso ka hortag ma leeyahay xanuunada nafsiga. Xanuun nafsi horta marka la dhahayo ka hortag caam ahaan inta badan waxay noqotaa xanuuno talaal laga qaato, kow markii kor laga soo bilaabayo ama ilmaha markay yar yihiin dhowr xanuun ay talaalo ka qaataan. Marka korkaas kore iyadoo laga hadlaayo ka hortag ma lahan xanuunada nafsiga. Laakiin hoos markii loo soo dagaandego ka hortag qaarna ka hortag way yeelan karaan oo qofka skills iyo waxyaabo oo og yahay ama dad kale oo ku arkay oo uga hortagi kara. Qaarne ma yeelan karaan ka hortag oo qofka sida xanuunada oo jirka ku dhaco ee dadka ugu dhacaan unbay uga dhici karaan. Marka ma la dhihi karo qofku wax oo dhihi kara ma aha way ii soo socdaan ama waa dareemoyaa ama way igu dhici rabaan waa ka hortagaya ma dhihi karo. Laakiin kuwan kale wuxuu waxa u sababi karo ama wada hebel haddoo maro inay ku dhici karaan inuu og yahay aa laga yaabaa. Soo marka inuu wadadaas wada kala qaado way dhici kartaa laakiin waa qaar ka mid ah kulligood ma ahan. Laakiin koodu waxaa muhiim ah inay fahantiin xanuunada nafsiga inay mar walbo la mid yihiin xanuunadan ilaahay ee jirka ku dhacaya camal. Sabab la'aan dadka qaar way ugu dhacaan, dhaxal ahaan dadka qaar way ugu dhacaan, nolosha dadka oo isbadbedelaysa sababo keento way ugu dhacaan. Marka waa wax ku dhex jiro nolosha maanta aadanaha ay nool yihiin dunida daafaheeda kala duwan dhan meelaha la joogo qaababkay u kala joogaan way ku dhex jirtaa nolosha yar weyn kalar hebel nin naag kulli wax oo dadkaas bini'aadankaas ilaahay abuure ku dhex jira waaye. Laakiin alxamdulillah wax walba horta markii la fahmo macnaheeda waxay tahay daawadoodii nus ka mid ah waa la helay. Marka sida awalbo idinkugu soo jeedin jiray ama uga hadli jiray warbixino ku saabsan xanuunada nafsiga mar walba waxaan rabaa inaan idiin sheego xanuuno nafsi way jiraan ha la ogaado qofkii haayana ha loo raadiyo meelaha dhaqaatiirta cilmi nafsiga ha loo raadiyo mar kastana yaanan eeda la saarin. waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.